بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبان igu soo orad ma ahan waxay samaysay ayaan isdul taagi doonaa biidn illahi tacaala maxaa yeelay ayday maraykan waxbaa dhex taagan sidaasoo kale ciidamada xamaas oo gaaday ciidamada israa'iil taana waan ka hadli doonaa iyo waxa dhacay iyo siday wax u dhaceen waxaan kaloo ka hadli doonaa trump oo haddana ku sameeyey wixii horey ugu sameeyey macronka faransa iyo madaxweynaha south korea ayuu erdogan ku sameeyey erdogan maxaa lagu sameeyey sidee dabcan xaaladda ahayd tan oo isdul taagi doonaa biidn illahi tacaala waxaan kaloo ka hadli doonaa video ama akhbaar degdeg ah video ma ahan akhbaar degdeg ah oo sheegaysa maraakiibtii ama doomihii ghaza ku soo socday oo weerar ku socdo dhinaca israa'iil aanse ku hormarno hal mar arrintan naftirkeeda cusub waa madaxii IAEA ee kormeeraysay sidaasoo kale la soconaysay xakameynta iyo sida ay wax u socdaan ee nuclearka iyo uraniumta iiraan ninkii u talinayay oo israa'iil sidaa u jaasuusaysay ayaa iiraan ahe keentay haddeerta akhbaartaas ilaan iiraan ayadana naftirkeeda dhinaca iyo israa'iil waxbay ka soo qaadataa waxbay ka soo xadaa marka iiraan macluumaadkay gudaha israa'iil ka heshaa waxaa ka mid ah ninkan oo ay israa'iil sidaa macluumaadkiisa u guranayso asagoo familkiisa la jooga asagoo taleefankiisa yani ku hadlaaya asaga ilmihiisa iyo macnaha oo meel wada taagan almuhim waa taleefankiisa caadiga ah kaamiradii uu leeyahay iyo sidaasoo kale laptopkiisa kaamiradiisa ayaa intaasoo sawir ay israa'iil uga qaaday iiraanna waxay ka heshay markay halkaa u dhacday oo ay ka soo qaadatay marka almuhim waa sida caadiyan caalamka haddee cid dhaafta ma laha gaar ahaan jagooyinka sarsare iyo meelaha xasaasiga cid walbo haysa waa lagu daba jiraa yani marka halkaasaan uga tegaynaa karaanada waxaa korkayga maraysa diyaaradan arkayaa dhawaaqa hadduu idin soo gaaro dhawaaq zaa'id ah ayaa jira okay hadduu iga tagay dhinaca kale aan ku xijiyo hal mar akhbaartan degdegta ah doomo waxaa jiray u soo socday ghaza saad la socoteen oo ay shalato talyaaniga iyo Spain ay dhaheen waxaan u diraynaa ciidamo si dabcan ay u difaacaan ciidamada Israa'iilna xoogaa yac looga dhaho macnaha ma aynan soo gaari lahayn meeshaasi laakiin ugu yaraan in la tuso yacnihi in ilaalo ay wataan iyo wixii la midka ah almuhim ciidamadii shalay unay soo baxeen laakiin qoladan maraakiibtan ama doomankan waxay ku soo dhow yihiin ghaza akhbaaraadka hadda soo dhacaysa waxay sheegaysaa in xaalad halis ay ku sugan yihiin maxaa yeelay droniskii Israa'iil ayaa lagu diray doomahooda korkooda ay sidaa dabcan ee droniska u dul socdaan marka wax lagu tuuray lama sheegin laakiin waxaa hadda socda yacnihi cabsi gelin iyo argagax gelin iyo in adiga ay isku dhex yaacaan ay ujeeddada hadda tahay sida akhbaaraadka soo dhacay ay sheegayaan kole arrintaasi inta aan akhbaarta hadda wadno haddii ay wax soo kordhaan waan insha allahu tacala idin wadaagi doonaa haddii kalena video xigaan ilahay idinkiisa uga hadli doonaa marka xaaladaasi waa xaalad cusub oo arki doona wixii ka soo kordhaa sida barashada quraanka kariimka ee macallin quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka ee cilmiga shariicada islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo haysato haddii baan shaqo ku jirto iyo haddii aad gurigaaga joogto qana laha jinsi u gaaro dugsigan waxaa wax ka dhiganaya carruur iyo ciroole rag iyo dumar kuwaasoo doonaya inay bartaan barashada quraanka kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanaya waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista igaada luqada carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka caqiidada islaamka axaadiista nabigeena iyo weliba fiqiga waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka skypeka iyo weliba whatsappka waxaana ardayda daafaha dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhamaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada quraanka kariimka wixii faahfaahinna waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda waran haddii fursad lagu siiyo inaad ka cumrayso waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo bukaan jiifa haddaba waxaa xaramka diyaar kuugu ah culimmadii hawshaas ku qaban lahayd iyaga oo aqoon iyo khibrad dheeraada u leh adigoo iska bixinaya khidmad kooban waxaana lagugu soo duubayaa cumradii oo maqal iyo muuqaal ah wixii intaa ka faahfaahsan nagala soo xidhiir nambarka whatsappka shaashada kaaga muuqda adsanid dhinaca kale erdogan asaga maxaa ku dhacay halma ila fiirsaday video horta ugu horreyn waa ilaaladii madaxweyne erdogan oo jidka laga xigtay ayagoo xaruntii qarmadooda u socda waxaa looga xigtay sababtan ay tahay erdogan aad arki doontaan xir kadib trump ayaa meesha soo mari doona cudwaaka erdogan uu taagay isaga iyo ilaaladiisa arrintan waxaa lagu tilmaamaya yani ihaane iyo dulaysi iyo macnaha quus iyo wixii la mid ah yani arrintan yaa lagu samaysa yaa xusuusta ninkii macron ahaa asagoo sidaasoo kale u soo socda waa tii jidka laga xigtay oo uu taleefanka u diray markiiba hee madaxweyne trump asagoo dhahaya guess what ma ogta waxay igu dhacay meeshaasaan taaganahay asagana yani uu jawaab fiican siinoo ku jeesjeesay uu yidhi iska taagno meesha camal taas marka daraad ay ahayd tii macron lagu sameeyey madaxweynaha faransiiska waxaa xigay xalay oo lagu sameeyey madaxweynaha south korea ninkaas ma soo istaaga meeshaasi madaxweynaha south korea maxaa lagu sameeyey asagana wafdigii uu la socday aa jidka laga xistay haddana maanta erdogan hadda marka waxaan arkayaa dadka qaarkiisa oo falanqeynaya waxay leeyihiin war trump 20kaas gaari kuma jirin oo 20 waqti kala socday
arrintan waxay u eg tahay target garaysi la target garaysanaya madaxda qaarkooda oo yacni adiga flex yacni waa la isbarooyanaya meeshan marka sidaasay u eg tahay oo macquul ma aha xilligii macron hadday dhacday haddana kan south korea inay dhacdo haddana erdogan inay dhacdo almuhim target garaysiyaa jira ay leeyihiin dadka qaarkiisa falanqayaasha ah ma aragta arrintaasi inay sidaa tahay oo ay macnaha target garaysi ay tahay la target garaysanayo kii faransa kan koonfurta korea suuriya way shabaxaan iyo tan hadda ku dhacday erdogan dabcan ilaadaysa kowdii waxay isku day inay dagaalamaan oo ay macnaha xoog ku jiraan biraha iska qaadaan waadna arkaysaa video qaybtiisa ugu horeysa qaas ahaan waa kaasatoodii waa kaa waa dhexgalayaa almuhim kadibna adigoo isdejinayaan oo macnaha madaxweynahan uu dejinaya yani xoogaa inay arrinta sii fogaan oo kale marka almuhim waxaa lagu tilmaamaya yani in arrintan ay tahay nasiib daro madaxdii martida ahayd in saa loo galo dhinaca kale waxaa israa'iil laga baajin doonaa ama laga joojin doonaa European yani adiga ciyaarta ay ciyaaraan midowga Yurub oo kooxahooda ay dabcan ku jirtaa marka in adiga laga joojiyo ayaa laga hadlaya sida leeyahay oona loo badinaa in laga saari doono inayna ka qayb qaadan taasina waa taa dhinaca kale xamaas ayaa waxay weerartay maanta laba marxaladoo kala duwan dagaalka u dhacay ama weerarka u dhacay marna waxay gubeen merkava taangigii israa'iil oo weliba laba taangi ah ayay weerareen iyo markay meesha dhibaatada ka dhacday waxaa gurmad u yimid ii sheegay helicoptertaasi oo ay weerareen kadibna waxay u suurageli weysay helicoptertaasi inay soo degto way laabatay weliba waxaa la arkayay helicoptertoo markaasi saaruukhii lagu tuuray sida agteeda u maraya kuma dhicin laakiin wuu sigayaa kadibna helicopterka iska bixaysaa marka kaana weerar wuxuu ahaa kooban dhinaca kale zelneski shalay hadalkii uu ka jeediyey oo dood badan dhaliyay iyo buuq badan macnaha wuxuu leeyahay afghanistan waxay ku laabatay yani casrigii hore ay ku laabatay maxaa yeelay gabdhaha iskadaa looma ogola macnaha intay ka dhacday sidaani ka dhacday asagoo dabcan xaaladaasi haysata ayuu afghanistan weeraraya wax ka galana malaha dabcan ninkan waxaa lagu tilmaama asaga inuu yahay yahuudi asal ahaan sida lagu tilmaamo marka dabcan hadalka uu meesha ka jeediyey waxaa dood uga dhalatay waxay tahay maxaa kaa galay adiga aday taada ku haysataa adaa dhibaato ku jira maxaa waddan kale ku geeyay qaarna wuxuu leeyahay uu saxan yahay inuu sheego wixii uu arkay iyo kada wixii la midka ah marka muxuu muuqataa inay edabdaro tahay qasdo oo arrintaa ka socota dhibaatada ka socota afghanistan inuu dadka ku mashquuliyo waxaa arrintaas sameynaya waa zelneski dhinaca kale afghanistan taalibaan maxay samaysay maxaa yeelay waxaan yidhi igu soo orad ma aha taalibaan maraykanka waa u godiyey wuxuu yidhi bagram macnaha saldhigaasi haddaadan na siinayn balaayaa dhacaysa dhibaato saynan u dhicin na siiya saldhigaasi taalibaan waatay adkaysteen ay dhaheen war kir waxaan bixinayna malaha kadib maraykan waa tuu haddana ku socday hadalka ugu dambeyn taalibaan waxay dhaheen 20 sano kale waan dagaalami karnaa ay soo soco shalay marka video ay soo saareen oo la yaab leh video wax weeyaan waagii maraykanka oo joogay afghanistan weeraradii ay u geysan jireen gawaaridiisa ay gubi jireen video ay soo dhigeen oo ay leeyihiin say wax u jira maraykanoo ma ilowday arrintii macnaha yani juta idinku dhufanayna iyo wixii dhacay ma ilowday camal marka maraykanka arrintan falanqayaasha ama khaasatan idaacadahooda qaar ka mid waxay leeyihiin waxay tusaysaa inay mowqifkoodii iyo xadjidnimadii siday nagu ahaayeen naceebkii ay noo qabeen weli meeshooda ay taagan tahay haddii ayna soo xusuusinayaan wixii la dhexmari jiray wixii la midka ah qoladan kalena waxay leeyihiin hadde taariikh dhacdo weeyaan adinkana soo weeraray waddankeena aad joogteen marka waxaan intusaynaa inaan wixii aan idinku samayn haddana idinku samayn karno haddaad soo socotaan sidaa darteeda almuhim videoyay soo bandhigeen oo weliba hal aan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn videoyo kala duwan oo badan intaas waa intii ugu dambeysay intaasaan kusoo koobaya asalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waran haddii fursad lagu siiyo inaad ka cumrayso waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo bukaan jiifa haddaba waxaa xaramka diyaarkuugu ah culimmadii hawshaas ku qaban lahayd iyaga oo aqoon iyo khibrad dheeraada u leh adigoo iska bixinaya khidmad kooban waxaana lagu soo duubayaa cumradii oo maqal iyo muuqaal ah wixii intaa ka faahfaahsan nagala soo xidhiir nambarka whatsappka shaashada kaga muuqda dugsiyada barashada quraanka kariimka ee macalin quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka ee cilmiga shariicada islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo haysato haddii baan shaqo ku jirto iyo haddii aad gurigaaga joogto qana laha jinsi u gaara dugsigan oo dugsigan waxaa wax ka dhiganaya caruur iyo ciroole rag iyo dumar
kuwaasoo doonaya inay bartaan barashada qur-aanka kariimka. aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanaya waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka, akhrinta iyo qorista higaada luqadda carabiga iyo qaybaha shareecada islaamka sida tafsiirka caqiidada islaamka, axaadiista nabigeena iyo weliba fiqiga. waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka, skypeka iyo weliba whatsappka. waxaana ardayda daafaha dunida joogta loo soo diraya shahaadooyinkooda marka ay ka dhamaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan. haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada qur-aanka kariimka, wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online? ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga. waxaan hadda u fududaynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka. dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka, halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena. ma jiro wax maalgelin ah, keliya iska diiwaangeli. hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta. ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka. haddii aad u baahan tahay caawinaad, nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan, hana soo wicin. booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta.